dhib kastoo isoo gaaro waxay iga soo gaaraan SCPO29 halkaas ayaa ku jiro. Okay Titore, hadda adiga soo fiiri dharkaana gey qolka SCPO29. Faahfaahinta qolka SCPO29 qofta ku jirta da'deedu waxay u dhacaysaa 15 ilaa 19. General ahaanna waa female ama dhidig. Kalarka jirkeedana boqolkiiba 80 waa black ifo. Sidoo kale indhaheedu waa kuwo madow, qofkay ku fiirisane maskaxdiisa isbedelayo. Qaab ahaan dagaalkana cid awood ku dhan ma jirto, sababtoo ah waa qof hub walba ku dagaalami karo. Waxay awood u leedahay ilaa 300 oo qof inay ku disho 10 daqiiqo gudahood. Teeda kale midda cajaa'ibka nagu dhalisa ayaa waxaa ah qofkan inay u gambi karto xateer xabadaha la soo rido. Mideeda kale shaygii ku dhaco asiga ayaaba jabo. Qoftaan hadday ahaa lahayd mid annagana caawiso, run ahaantii boqolkiiba boqol waxaan hubaa markasta inaan guuleysan lahayn. Halka mid oo looga awood badan yahay waa iftiinka. Markii lagu qabto ilayska ama qoraxda ama toosh aad u if badan way dibcisaa. Midda kale oo la yaabka leh ayaa waxaa ah qofkay indhaheedu ku fiiriso maskaxdeeda iyada ayaa maamuleyso waxa ay rabtane uu sameynayaa. Magacyada ee dadka u bixiyeen waxaa ka mid ah gabartii madooweed, gabartii hooska ahayd iyo gabartii haweenka. Ilaa hadda waxay dishay ilaa 3 wariyo ee si fudud ku dishay. Markay 3daas wariyo dilaysane waxaa joogay dhammaan askarta. Run ahaantii taariikhdeeda markaan dib u raacno, gabartan waxaa laga soo helay dalka India, taasoo dhibaato weyn ka mareen ciidamada Mareykanka iyo Ruushka. Marka koowaad aan arkayna waxay ahayd qof u eg sida bahalkii oo kale. Sida naloo sheegayna qoftan maalin Ilaahay keena waxaa loo qali jiray hal qof. Waxaan ogaanay daraadeed in loo dilay 100,000 oo qof. Waxayna dishay dad meesha baaritaan ku sameynayay, iyagoo baaraya ayay si fudud ku dishay. Arrinta noo fududeysay inaan qabano waxay ahayd iyadoo ka baqaysa iftiinka ama nal haddii lagu daaro. Hadda waxaa ka hayaan square askar aad u adag. Meesha ay ku jirtana looma ogolo wax dhar ah, wax taraq ah, wax hub ah ama wax jiif ama marooyin sidaad u taqaanid iyo ciyaalka. Run ahaantii ma garanayno waxay cunto kastoo bini'aadanku cuno markaan u geynay way diiday. Markii shaqaalaha ay galaan qolkeeda aad ayay u baqaan shaqaalaha, laakiin markii qolkeeda la soo galayo waxaan ku daarnaa nalalka si ay awoodeeda u daciifto isla markaana si fudud waxaan rabna u qabano. Ilaa hadda waxaa naftiisa ku waayay nin muhiim nagu ah, ditoorkeena ugu weynaay ayay gacantiisa taabatay, asigana wuu isbedelay. Ditoorkaasina xaalad adag ayuu maanta ku sugan yahay.